Bismillahi Rahmaani Rahiim. Waa salaamantiin meel kaste oo aad iga daawanaysaan Soomaalida iyo dadka muslimiinta ahba. Waxaan rabaa bal sidaad ogtihiin dowladda uu hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxay hadda jirtaa muddo 10 cisho ama dhowr iyo 10 cisho ah. Xilal dhowra ayaa la magacaabay. Sida ogsoontihiin dalka Soomaaliya laga soo bilaabo min baarlamaan ilaa iyo heer madaxweyne wuxuu ku dhisan yahay wax la yiraahdo 4.5 oo Soomaalida xal ay u arkeen oo qaab qabiil loo qaybsado. Ilaa iyo aminka tareenkii Xasan Sheekh Maxamuud uu noo sheegay in dadka dhan ay iska dhex arki karaan oo dadka dhan ay raaci karaan ma aragno. Xilalka la magacaabay oo dhan waxaad eegaysaa inay yihiin xisbi gooni ah iyo dad isku jifa oo gooni ah. Aan ka soo tagno taas cusri ma leh. Kolley wasiiradii baa dhiman oo ra'iisul wasaarihii baa dhiman oo xukuumaddii baa dhiman. Dowladdii meesha u xoog badneed way dhiman tahay. Laakiin arrinta la yaab kale dad badan ay ka walwal qabaan waxa weeye arrinta loo magacaabay Mahad Salaad. Mahad Salaad waxaa loo magacaabay madaxa sirdoonka Soomaaliya. Hay'adaas waa hay'ad xoog badan oo looga baahan yahay adduunka in wax badan ay ka qabato, communication badan ay samaysato, ay dalal badan la xiriirto, ay sirdoon badan hesho dalalka dariska iyo kuwa caalamkaba. Waa hay'adda dhan ee dalka runtii siyaasaddiisa laga hogaamiyo, nabadgelyada iyo hadday ahaan lahayd dhinac walbaba. Maxaa looga baahan yahay hay'adda sirdoonka? Runtii waxyaabo badan ayaa looga baahan yahay. Shuruudaha ugu horreeya looga baahan yahay waxaa weeye xogta sirta dalka inay hayso oo san siraha kale ee dalalka ama dariska ah ama hay'adaha ayada la midkaana ay xog iyo xiriir ay la leedahay. Maxaa loo baahan yahay marka qof waxaa loo baahan yahay khibrad u leh ama ciidan soo maray oo hab ciidan yaqaano ama ma ahe kafiyow arrimaha qabyaaladda iyo waxyaabahaas kafiyow oo ah qof dadka u dhaxayn karo. Hay'addani waa hay'ad awood badan, waa hay'ad dadka ama lagu dhibaateyn karo ama lagu nabadgelin karo marka si loo eego. Waayo sirdoon baa la yiri waa secret service sida shaqooyinkooda dhanba wax qarsoon weeye. Maadaama ay qarsoon tahay qof caankii ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay qof cilmi leh sir ahaanna wax celin karo. Mahad Salaad waxaan la soconaa 5 sano ugu dambeysay inuu ahaa nin cod dheer baarlamaanka ka dhex hadlo dadka inta badan ugu baaqo qabiil in qabiil uu kiciyo in dadka qabiil ahaan lagu laayo in maaragtay waxba noocaas oo kale aad u fara badan oo moodan in laga soo gudbay. Runtii marka Mahad Salaad jagadaasi jaga u qalmo ma ahan dad sida ay qirayaan dad badan oo khubaro ah ama arrimaha siyaasadda ku takhasusay ama ah dad Soomaaliya xilal ka soo qabtay oo garan kara hay'addan iyo qofka caynka ay u baahan tahay. Ninka ka horreeyay waad garanaysaan hay'addan haye Fahad Yaasiin waxa weeye lama arki jirin cidna lama shiri jirin bidaantiisa lama arki jirin sawirkiisa asoo waliba nin caan ahaayo journalist ahaayo international journalist ah waliba Al Jazeera ka soo shaqeeyo caan ah ayaa hadana wajigiisa aan la arki karin. Sababtu maxay tahay? Hay'adda ayaaba sida u samaysanba in qofka la arkin in qofka siyaasaddiisa iyo waxyaabahaas ay shacabka ku dhex milmin inuu yahay dad qof ka fiyow bulshada dhexdeedana ka fiyow caalamkana u fiyow inuu yahay. Marka arrintan marka waxaan u arki karnaa Mahad Salaad ama dad badan bay u arkayaan runtii inay tahay arrin ama dad uga argoosan doono ama dad uu ku dhibaateyn doono shaqooyinkii loo igmaday ee hay'addan loogu talagalay inaysan u soconaynin ayay dad badan aaminsan yihiin. Waan arki doonaa runtii sida ay ku shaqayn doonto iyo qaabka hay'addani ay markaasi ula falgeli doonto shacabka Soomaaliyeed, dowladaha dariska ah, internationalka iyo sidoo kale Interpolba. Waxyaabahaas oo dhan runtii macluumaad dheeri ah iyo xiriir iyo khibrad ay u baahan tahay. Marka waxaan oran lahaa kolley waa lagu degdegay xilkaasi xil madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku degdegay bay ahayd. Runtiina ma ahayn saas in lagu degdegay waxay ahayd in laga fiirsado qofka mudan iyo qofka xilkan qaadi karo. Isku soo duuduub waxaan arki doonaa bal sida ay ku dambayso. Soomaalina waxaan u rajaynayaa nabadgelyo iyo barwaaqo.